waxaanu ka nimid degmada Xudun waxaanu u keenay laba booyadood oo biyaa iyadoo ceelka maanta lagu haraadan yahay uu ceelkii go'ay waxaanu keenay laba booyadood oo biyaa oo ay bixisay dawladda Soomaaliland marka heesha aad iyo aad baan iyagu mahad celinaynaa dhul badan oo hore oo degmada Xudun aan soo waraabinay way jirtay laakiin markaanu dhulka eegnay ceelkii biyo lahaan jiray ee ugu baahi badnaa bool hole ahayd haddana waxaan ku soo dhaweynayaa haystaba joogeen tabiyo waa taa teeda kale waxa weeye baahida magaalada way fara badan tahay odayaasha hore sheegay wax badan oo hadda aan ku daraamo jirto magaaladu waxa weeye waa tuulo yar wax badan baa ka dhiman wax qabad ma ay helin waxa maamuladu wax qabanayaan iyo hay'adaha caalamka jooga waxba kama soo gaaraan sidoo yaasho hore sheegaan MCH male caafimaad goob male iskuul male malcaamadu way leedahay laakiin malcaamadu ardadii xitaa waa ku yaraatay oo waxa weeye waa marba koox baa la geliyaa qadifaday gogladaan iyo qurac hoosteeda loogu dhigaa iskuulka ciyaalka waxa weeye qolada Xudun ka timee gudoomiye ka mid yahay oo arkay iyaga de wixii magaranayay soo gudbin doona baahiya laakiin baahida bilaadanku tan aad bay ugu fara badan tahay wax qabad bay u baahan tahay cidii wax qabanaysa wax qabad bay uga baahan tahay waxaan ku daraa meeshan aan joogno waa holhol waa tuulada ka tirsan degmada Xudun gobolka Sool halkan maanta waxaa noogu yimi maayirkii degmada iyo odayaal kale oo la socdo iyo ciidanka amniga waxay noo keeneen biyo 200 foosto waxa weeye waa markii ugu horeysay horta Ilaahay baa mahad leh iyagana waxa weeye waanu ku mahadcelinaa waanu uga mahad celinaa Soomaalidu waxa ku maamada faamada filmsa waxa weeye dadka biyo kuna waa dadkoodii hada mas'uulka kuma amaanay waajib Ilaahay bay ku tiraan ha haati waxa weeyaan anaga waxtar weyn bay noo ahayd maanta iyadoo xoolihii hoganayaan ceelku go'an yahay maatadii hoganayso babiyaas noo yimaadeen hadda waxa ma joogan kow taas waa taa talabaad markaan ka warbixiyo baahida magaalada iyo deegaanka magaaladu waa tuulo waxa weeye marka ugu horeysay baahiyaha waxa ugu weyn arrimaha bulshada kow caafimaadka hooyo haddaan caafimaad jirin nolol ma jirto waxna lama barto waxna lama cuno marka ugu horeysay goob caafimaad horta MCH baan horeysan laakiin wax qalabayna iyo shaqaale midna ma laha taas baahi weyn baan noqonaa maalin walba maatadu markay foolato jidkay ku baxaan oo nafta kaga baxaan markay dhig baxaan waa baahida ugu weyn talabaad waa waxbarashada waxa weeyaan meesha waxa jooga arday cadad ahaan tirada marka la qiyaaso 150 gaadha hooy iskuul iyo agab midna male waxay wax ku bartaan malcaamada oo dadku isu tashaday oo la dhistay oo laba qolo yar oo loogu talagalay ardayda malcaamada quraanka loogu dhigo ayaanu dugsigeena dusha ka saar waa isfuul Google male oo leed male oo hadii la kale imkaaniyaadkii waxbarashada wax badan baa ka dhiman macallimiintuna wax weeyaan voluntary bay ku dhigaan dadka meesha jooga waa dad iska danyara waa dadkii abaaruhu soo xareeyeen macallimiin ma haystaan baahida masariftooda waa dadii qaacida wax siiyaan baa joogtay maamul wax kama qaadano baahida guud
biyahana dee waa aragtaa ishinadu macalinaho dee saaka buu ugu dad yaraa iyo dunyo maalintii ka dambaysaba wuu ka badan yahay xooluhu gabalkaa ugu dhaca baahida biyuhuna iyada dee ishinadu macalinaho waa taas xooluhu dhulku waa deer cunno male xaraartaa dheer meel ka sokayso weliba ariga inuu wax ka qorso waa laga yaaba laakiin dhulka kale antiraas bisugu baxay dadku mahad u celinaynaa allah raxmaanka baanu mahad u celinaynaa isaga ayay mahad u sugnaatay ilaah bay mahad u sugnaatay oo u mahadnaqaynaa way noo yimaadeen biyahaasi labada booyadood oo qaada min 100 foosto oo degmada Xudun nooga yimid dawladda Soomaaliland waanu u mahadinaynaa degmada iyo odayaasha noo waday iyo Soomaaliland allah raxmaanka oo amrayna waanu mahad baanu u naqaynaa isaga ayaa iska leh wax qabadka isaga ayaa loo cawdaa ilaahay isaga ayaanu mahadnaqaynaa dadka uu noogu soo dhiibay noo soo ashiibay noo soo shaqeeyayna waanu u mahadnaqaynaa ceelka hol baanu hadeer idin kala hadlaynaa isagoo baahi biyood ka jirtay baahi caafimaad ka jirto haddii baahi iskuul ka jirto abaari ka jirto baahida oo aad iyo aad u fara badan oo ilaah mooyaane qof binaadmi aanu koobi karayn xoolihii waxay cunaan aanay haysan abaartaasi ay jirto ilaahay baa keenay wuxuu ilaahay keenana waa loogu mahadnaqaa allah raxmaanka waan ugu mahadnaqaynaa marka waxaanu ka codsanaynaa cidina caawin karta haday dawlad tahay iyo haday islaam tahay kale haday hay'ad tahay waxaanu ka codsanaynaa baahida iyadu waa mid fara badan nolol xoolaad oo biyo ay ka mid yihiin nabarada ugu waaweyn ay yihiin iskuulkaas oo aanan haysan malcaamad baanu isu horiyo daba marinaa iskuulka iyo quraankaba malcaamad baanu ku wada dhigaa qol baanu ku wada dhiganaa qol malcaamada loogu talagalay baanu ku wada dhiganaa wixii nolol qaban karo waxaanu ka codsanaynaa islaamka iyo dawladda wixii ay noo qaban karaan inay noo qabtaan baahidaas kale oo raashinka iyo macaashada dadka xoolaha biyahooda iyo wixii raashina iyo wixii caafimaada iyo wixii iskuula iyo wixii biyaa waxaan codsanaynaa inay nalo caawiyo naloo dadaalo waa degmada waa tuulada hol weey oo meeshaas ugu biyaha badnayd wadanka abaar dhoodideedii waa biyo la'aan waa la arkayay sawirada waa la arki doonaa xoolaha iyo dadka dayaca ka haystay annaga oo cadilan oo aan wax biyo ah noogu jirin meesha oo saaka xooliyo dadkiiba hoganayaan الله الرحمن كاهي ونوكيني يددكا walaalaha iyo ay nagu soo caawiyeen labada booyadood ceelkay noogu shubeen waxaanu garanay ceelkaan wadaagnaa kuwa miiga iyo kuwa tuuladuba ceelkaan wadaagnaa in ceelkana loogu shubo hadaan tawaangi iyo foostooyin ku shuban lahayn waxay noqon lahayd in cid yeelato laakiin general baanu sameynay in loogu shubo ceelka si aanu u wadaagno oo aanan waxba maaragtay u kala yeelan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh